iyadoo dhawaan ciidamada ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose haddana markii ugu horeysay tan iyo markii ciidamada xoogga dalka ay halkaas la wareegeen dawladda Soomaaliya ayaa deeq raashin waxa ay geysay dadka ku socda Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose wariyahayaga Cabdiweli Cali online ayaa warkan noo soo diray deeqdan raashin gobolka Shabeellaha Hoose ayaa degmada Awdheegle waxa gaarsiiyay gudoomiye ku-xigeenada gobolka oo ka wakiil ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najac oo howlo shaqo u joogo qaybo kamid ah gobolka iyo xildhibaan Nuur Siidow Baaba oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya deeqdan ayaa waxa ka faa'iideystay boqolaal qoys oo danyar ah oo ku nool degmada Awdheegle oo dhawaan ciidanka dawladdu la wareegeen gudoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ee gobolka Shabeellaha Hoose Nuur Siidow Baaba ayaa la hadlay bulshada ka faa'iideystay deeqdan waxaana sidoo kale ay gudoomiyaha horumarineed uu ka wado gobolka Shabeellaha Hoose wakiil uga nahay oo isu aadan waxa waa gudoomiyaha hore u yimid meeshan gobolka degmada markii la qabtay weyn gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo maamulka gobolkaba iyo taliyaha qaybta wafti hogaamaha hore u soo gaareen bulshada degmada Awdheegle iyo ciidamada ammaanka sida amniga u suganayay bulshada hore u soo gaaray haddana waxa waaye sidii looga warheli lahaay amba ay sheegay dadkan bulshada loo soo gaarsiilay xoogay kanyaqooyin iyo sidii haddana xagga caafimaadka iyo waxbarashada aan rabood uga soo diyaar lahayn arrintaas si fiican nooga soo gashay si odayaasha dhaqanka noo soo dhaweeyeen degmada Awdheegle kuwad aan deegaankooda maaragtay nabad uga dhignay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maaragtay qayb nagala ahaayeen marka labaadna in loo keenay wixii ay mudnaayeen dadka masaakiinta ay waayeelada iyo maaragtay hooyooyinka maaragtay garoobada oo aan shaqaysan karin farsta eeyda oo dhig joojina dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u jeediyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo runtii qayb lixaad leh ka qaadanaya si loo taakuleen lahaa ama gargaar loo gaarsiin lahaa dadka danyarta ee masaakiinta ah oo ay dhibaateeyeen cadawga ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ammaan gaar ah aan u jeediyo madaxda ugu horeysa dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya celin gaar ah u jeediyaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo runtii intii uu xilkan u qawaday oo dhaqdhaqaaq aad iyo aad u culus isku wado deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ahmiyad gaar ah la siiyo Wali Ali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose Awdheegle